isku maqanay kala maqanay warya waxaad ku maqnayd mahankeene isku maqanay kala maqanay waxaad ku maqnayd mahankeene waxaan ku maqnay dadkan maqano warya wixii ka maqnay muraad kala ahayn waxaan ku maqnay dadkan maqanayo wixii ka maqnay muraad kala ahayn war isku maqanay war meesaane war aadi haya wareedha war ma rabnee wax dheef wax la yidhaha ma noo wadaa war isugu wax dheefku waan gaaraynaaye maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya maanta xukunno kala duwan ay riday hadda kuwii bajaajku wax ku dhici jiray ee mobilada ka dhigay maanta afka baakad laga saaray wareedha haya ninkan af xuma qofka markuu dhintaa baakad afka laga saaraaye ragaas waa la xukumay laakiin waxa kale oo ku sii faraxsanahay waxaa laga yaabaa kuwii talaafiga ka qaatay inay ku jireen horta isku maqanay been baad meesha ku haysaane saddex qofood oo la xukumay mar raggii xamar mobilada ka dhici jira saddex kale aha fari kama qodna faanoole isku maqanay been baad sheegaysaa nimayo war saddexdii la xukumay war looma ooyaamay ahay weliba mobilada waa la xadayaa dadku intaa way ka badnaayeen war isku maqanay hadda ka hore waxaa la yidhi nin ayaa xabsiga laga daayay kadib markii dhac lagu eedeeyey markii xabsiga laga daayay kabacdi ayuu wuxuu dhahay aniga tuuganimadan aan ku jiro mid ka fiican aan gelaa waxaan aqaha siyaasi markii aan dembi sameeyo dawladdu ayadaa ilaalihayso meeshay aniga iga soo xirtay hadda wareedha isku maqanay ninka kan mawaalan yahay waa maxay waxa noo sheegaa nin eedaysan oo xabsi ku jiray asagoo eedaysan xabsiga looga sii daayay oo weliba haddana siyaasi ku noqonayaa oo uu leeyahay dawladdii baa ilaalinayso weligay waxaan arkay oo maqlay ma aha intaasna waa soo joogay wareedha haya siyaasadda aad sheegaysaan waa tuuganimo la casriyeeyay qofkii raba inuu dhunto siyaasaddaas oo lugta la galaa war taas waxaa ka daran ganacsatada Soomaaliyeed qaarkood siyaasadda waxay u galaan in ganacsigoodu ay ku ilaalsadaan kaaga sii daran wixii dhacay inay dalka noo keenaan wax control la yiraahdo maba jiro wax xasaanado leeyahay wixii sana lama baaro wareedha isku maqanay waxaan isku ogeyn inaan ka hadalno tuuga la xukumay laakiin ganacsi iyo siyaasadna galiseen waxaan kaloo idin weydiiyay horta maxkamadan ciidamada qalabka sida la leeyahay shabaabka iyo maaragta askarta dawladda xukumi jirtay ha tuugadan soo galiyay meesha iyada war waxaan idin dhahay adigu ma waxaad ka xanaaqsan tahay tuugada in la xakameeyo oo maxkamad la saaro miyaad ka careysan tahay wareedha isku maqanay war adinka dhan cuqdada idin heesa oo ma iska hadartan tuuga noqotaan adinka laftirkiina wax dhacdaan war isku maqanay war dalkan qaab walba wax loo dhaca tuuga casri ah joogto qaarkood fatishaari soo gashtaan faanteen dhaxdana waa soo xirtaan suudadkina waa soo qaateen madaxna waa soo cimaamadeen marka idinka idin taalaaye tuugada aad sheegaysaan maanta aad ku doodaysaan saddexda lama xukumine laba kamid ah la xukumo kii kalena $2 intuu siiyay si daay war heedha isku maqanay war ma haysaane tuuganimo masaajidka dhexdiisa tagtay meelay dhaafta lama arkay naga dhaaf war isku maqanay dadka wax dhacay kuwa qamiisi cimaamado wata ku jiro koodhaha tan kale kaaga sii daran gabdhaha xitaa waxay xadaan war heedha wax ma kuu sheega gabdhaha waxba ma dhacaanay ka leexo wareedha isku maqanay horta gabadhu waa naga saxan tahay ilaa hadda tuugnimo gabar maxkamad loo geeyay maana arag laakiin waxa idin sheegayaa sheekadan tuugnimada aad wadaan waa nagu dheerayseene ummadda baana sugayso nagu soo maqane annaguna xageen ku sii maqannaa hadeer war waxaan ku maqannahay isku maqanay axmed madoobe ninka la yiraahdo shalay waa tuu dabajax intuu qaatay hadda saad aragtay qoryaha xabadda ugu ridi qorige kaaga daran qorigii xabad baa ku istaagtay wareedha waxaan ku weydiiyey waa adiga axmed madoobe hadda ii soo hadal qaadaye qoriga dabajeexna hadduu qaatay ma wuxuu soo xasuustay berigii al-shabaabka uu ku jiray war maya berigii duurka ku jiro soo xasuustay war kuwa waxaaba ka daran kuwa baraha bulshada soo dhigayay madaxweynihii dalka Buruleer buu ka naxay axmed madoobena beeko buuridayaa wareedha isku maqanay madaxweynaha muxuu u nixi waayay maraykan uu ka imaadee maasaa weligiis xabad riday wareedha isku maqanay
war ninkii maraykan ahaa ciidanka dawladda ee gobolka Gadageysa waa ka soo horjeestay waraadha isku maqan waxaan idin weydiiyey maraykanka sababtu gobolka Gada ciidanka la geeyay u diidaayo ma al-shabaabka meesha ku xoogaysta waxa uu leeyahay waxay xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed ku sugan Gado waraadha waxaan idin weydiiyey kuwa maalin kasta diyaaradaha uu ku dilo oo ugu dambeeyay ninkii shalay jilib ku dhintay oo ay ku dileen ما كهلان مريكن ورهاد اسكو مقني سوماليدو waa isdishaa ayana waa la dilaa duqeyntan mareykanka ee aan loo meel dayin dadkeenu wuu ku dhamaaday ee daayimo rabbiyow dareensi shacabkeena inay danahooda gartaan war isku maqanay war ma yeesane mareykanka kaliya kama uusan hadlin Gado arinta la xiriirta ee siyaasadii gudaha ayuu faraha la soo galay waxa kama jiraan ku tilmaamay doorashooyinkii ka dhacay deegaan dawlad goboleedyada dalka qaarkood garaan galmudug waxa uu amaanay siyaasiyiintii iyaga hore u diiday inay doorashadaas ka qayb galaan iyo sigan waa uu bogaadiyay oo waxa uu sheegay inay ahaayeen dad nabadda jecel waraadha isku maqanay waligiin horta idinka laftirkiin waa isku maqnaa jirteen maraykanka laftirkiisa waa isku maqan yahay ninka la yiraahdo Donald Yamamata mar hore wuxuu sheegay galmudug wixii ka dhacay inay sax ahaayeen hadda maraykanka weyn waxa ka soo hadashiyay ee uu doorashada wax kama jiraan waa u leeyahay ma garan war isku maqanay war ninkii gaabnaa oo uu ka ciyaaryahanka kubadda cagta Lionel Messi waxa uu sheegay been may noqdeen waraadha isku maqanay hayaay warkii hore war ba soo dhaafay waxaad sheegaysan dhan wax ka duwan idin hayaa warheedha waddanka hantidiisa waa la iska daldalan jiree haddaan soo baraarugnay dhagax weyn ilaaha weyne oo qaali ah oo maaragtaa hiiraan laga keenay ayaa muqdisho lagu qabtay 264,000 oo dollar ayaa lagu soo iibsaday dhagaxiina dawladda Soomaaliya hayso xildhibaanadii deegaankaas ka soo jeedana dacwayba qabaano waxay leeyihiin dadaa loo soo dilay hadda ka warramaha dhagax intaas la eg haddaad aragteen maalin walba wax la qaato soo kama badno annaga aanan ogeyn waraadha isku maqanay oo dawladda dhagaxa qaadatay ma iyada hore u qaadan rabta mise dadkii ku celin rabtaa war isku maqanay idinka dhagaxna waa leedihiin waana qaalna waa dhahaysiin dhagax hadhiinina magac kale u yeela war isku maqanay dhulkeena ilaahay qeyrada ku maneystay macdantii badroolkii iyo shidaalkii inta way buuxaan ku dhaha waxaase inoogu sii daranba dadkuna ay la yaaban yihiin dhagaxa dawladda soo qabsataa leedihiin dawladdu maxabsiga geesay waata dhagaxaantii ogeyn in wadooyinka ay ku xiri jirtay mise dhagaxan wuxuu ka mid yahay kuwii wadooyinka lagu xirayay warheed isku maqanay wax ma idin sheegaa niyo waxaan nasiib darre oo dhibaato oo lama maqlaan ah annagoo khayraadka intaa la eg haysano haddana aan aqoonin meesha uu naga jiro kistiyar oo wax fahamtana lagu qabsanayo taas horta waa nasiib darro laakiin haddaan telefoon diraa gurigayga hortiisa dhagax madoobaya haddii la rurugo inuu daab noqdaa laga yaabaa waraadha isku maqanay hal arrin baa inay hayaa dhagaxaan hadda laga hadlaayo jaanis lacageed baa ka soo baxay 2020 doorasho lagu geli rabaa warheedha warkaas waxaan ka fahmay xildhibaanadii deegaan doorashadooda ay ahayd ceel cali oo shalay ka qaylinayay iyaga laftirkooda xildhibaanada way isku maqan yihiin waraadha isku maqanay war cusub aan idin hayaa wasiirkii waxbarashada ninka la yiraahdo Goodax Barre maanta maqaamka Muqdisho u doodayay isku maqanay Goodax Barre muu arintan isaga haro hadda koor ayaa taabid xilkiisa uu ku waayay maqaamka Muqdisho war muu xilkiisa dhowrto war isku maqanay waxaan la yaabanahay magaaladan oo xuquuqda ay leedahay calaamad la gelihayo lana rabo in lagu dul noolaado taasaan la yaabanahay maqanay idinka xuquuqdan gobolka Banaadir uu lahaa waa la soo gabagabeeyay waqtiyan loo qabtay idinka isku maqano Goodaxna ku maqane baarlamaanka hore waxa uu sheegay gudoonkooda in kala fadhiga toddobaad si rasmi ah loo shaacin doono xuquuqda siyaasadeed ee gobolka Banaadir marka hanagu boojeenina xuquuqda gobolka Banaadir naga dhaafa waraadha isku maqanay idinku waa iska hadlaysaane maqaamka Muqdisho sharciga doorashooyinka oo doorashada hadda lagu geli rabo xataa kuma qorna in xuquuq la siiyo iska dhaafe
lacagti ka soo baxdana waa cunaynaa waana cabaynaa waana ku xashaashaynaa weliba war isku maqanay war ma haysaane ubadkeeni waxbarashadoodii waa laga deeriyey oo maxaa ubadkeena ku dhacay mustaqbalkii lagu tashaayo waddanka ayayba ahaayeene war 2,000 oo macallin oo waxbaraya ubadkeeni Soomaaliyeed ay wasaaradda waxbarashadu imtixaan ka qaaday 135 kaliya ayaa macallimiin sax noqday inta kalena waxay noqdeen eber warheed isku maqanay waxaan arki jiray ciyaal jaamacad u socdo markaa su'aal weydiiso tiraahdo waa maxay chemistry-na aan ka jawaabi karin macallimiintana noocaas oo kale weeye kowdhe waa la soo bootiyay buugii qalinkana waa iska qaatee naga dhaafan lagu wareerin haddii ay sidaa tahay waxaa su'aal mudan wasiir goodax asiga naftirkiisa marka wasiirka waxbarashada soo naqaay imtixaan ma laga soo qaaday war imtixaan lagama soo qaadine waa la soo magacaabay waxaa kaaga daran muqdisho waxaad ku arkaysaa arday muddo 6 sano wax baranayo aan maalina buuq qaadanoo dhammaanteed wixii 10 ahaa waxa uu ku leeyahay mobilka igu jiraan yaa wax u akhrinaya marka wax dhan mobilka igu jireen warheed isku maqanay waxa macquul ah in macallimiinta ee dusha laga saarayo war cunug aan habeenkii ku dhafrayo meesi maalintiina mobil iyo game la dhex joogo fasalka yaa wax bari karo waraadhe isku maqanay warka anigu waxaan ku soo gabagabeeyey macallimiinta laftirkooda haddaysan ardayda kontrooli karin ma iska baxaan isku maqanay arday haddii hal dharbaxsha maalul ku soo dhifatid adeerkii ama aabbiyi ku kansanayo ama dariiqa ku istaaga intuu qori soo qaato yaa maaru hela